saaxiibadana qiimaha badan ee ku xidhan halkan waxaan idin wadaagaynaa wax cusub oo ah xafladii qurux ku dhiigle maxaad ka og tahay in laga dulqaaday Muresh Baby qurux ku dhiigle san wada ogeyn qurux ku dhiigle iyo Muresh Baby waxay ahaayeen lamaane si weyn isugu dhow soo kalena aad isku jecel muddooyinka ugu dambeeyna soo wada jilay barta YouTube-ka jilayno kala duwan kuwaasoo dadka Soomaaliyeed aad u rabaa iyo riyaaqeen kadibna ay ku tilmaameen inay labada qof yihiin lamaanaha soo socda ee ku xigi doona waqti dhow Sameexa Qaliil ama Idris Cabdi ama Kikisikiya Sameera balse haddeer waxaa la sheegayaa inay lamaanaha laga dulqaaday amba la kala fogeeyay oo ay gabadhi ka dulqaatay qurux ku dhigle soo kale fartuun balbalaarka ayaa ka dhigtay wacdaro hayaay xafladii qurux ku dhigle Idris Cabdi ayaa isna la sheegay inuu guursan doono Sameexa mar dhowna meherkooda ka dhici doono Nairobi الله صاحب انت المقال كجودة قلنا وحن كعصنا الفيديو قال لك صارته ونشر قريسة صاحب هذا كله فيسبوك هاي مركان ما تنيده هي وورني يوسف صاحب يال هذا أرنتن إذن هينا واحد تهاي أنا كأصور قرق سوق قادني أنك سوق قاد واحد فيديو يا حتى أنا صاحب واحد إذن هينا حقيقة تاسيو إن مريش بيبي لقدر القاضي قرح كوديغلو حاسيو ونكسر رجع على تجار كله تاسيو مروق ربط عندها مريش بيبي واحد نقطي midii maanta ugu murugada badneed amba ugu hadaleynta badneed barta YouTube saaxiib jacaylkii qurux ku dhiigle iyo Muresh Baby waxa uu noqday tarooriyo hays oo ku daay dal abaara taas kadib markii uu Muqdisho u soo baxay qurux ku dhiigle waxa uu helay gabadh si wanaagsan oo la jaan qaaday xiriirkooda mid wanaagsan oo noqday kadibna waxa uu ku soo bandhigay xafladii sabootintiisa Muresh oo iyadu dhageysanaysa ama si leef u daawanaysay muuqaalka la soo daaway ayaa la arkay iyadoo suulkeeda cunaysa iyadoo oo waliba hay indhaheeda ilin ka muuqato taasi oo hadalhaynka abuurtay baraha bulshada saaxiib arrintan komitiga nooga raadisay kula muuqato dhinaca kale Sameexa Qaliil iyo Idris Cabdi ayuu araskooda ka dhici doona toddobaadada soo socda magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya karana xaafadda isli ee Soomaalida ku badan tahay saaxiib waa warnay oo news kaasi oo maanta aan idin hayno Idris ayaa u sheegay sida uu ognahay amba sida ay ilo kala duwan sheegayaan Muresh Baby inuu araskooda ka dhici doono Sameexa iyo Idris magaalada Nairobi ayaa uu sheegay in asxaabta YouTuberleyda ama TikTokleyda ee ku sugan Kenya ay u diyaargaroobaan xafladda meherkooda iyo sida u soo dhaweyn lahaayeen Idris midaan ognahay markaa wuxuu joogaa hawlaha arooska Sameexa Qaliil iyo jacaylkooda si uu si laf gur lahaayeen saaxiib arrintana waa mid aan idin hayno waxaan idin leenahay duhur wanaagsan